ما أنت هل كان حفلة قرآن على الغدية ضد قرآن حفظية الذي رجلنا قبل محجبات سي ما ركتي إلهي سبحانه وتعالى رالي كيه وأسطرا آيات جوجا سيد هذا الشيخ عبد الرحمن الشيخ ينا مقالة مقدشو شيخ أساساك إيشاي أنا وربك مهين ما لك ميدا إن ضدك الإسكوية يا ري إعلان لبحيي اللي يري ما حيكون مقعبا شو يا مقرنا إلاكي إسكو صباحا وفهمي إسكو صباح فسقي إسكده وما لا فساد الإسكوية يا ري دقمة هذا ميلها سيهل بان مغلي إيوه هيلو على كل حال فاسقين يا فاسقات اسكو صباح ميل بنان اسكو يمادين halkaas lagu neekinaya xalay ogaada hada walaamiga dhexdiisa qofka dambiga banaanka la yimaada waa ka daran yahay midka asturto qarsada nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ummadaydo dhan waa la cafiyay ilaa kuwa fisqiga la jahra maahan kuwa fisqiga la jahra waliba ninka qof fisqiga la jahra waxa lagu fasiray qof inta dambi si qarsoon u sameeya kadibna subaxdii ka sheekeeyay yiraahdo xal waxa aan sameeyay ka waran ninka inta iclaansaday warbaahinka iclaamiyay hal iskugu ka yimaado maxaa qabanay inaan ninkiyaan rabaa dadka dhan iskugu yeera oo waliba hadana waxa sidaa sameynay ay dumar yihiin waxa la soo bandhigayo nasallallahu alaafiya allah hanuuniyo fasaadkoodana umada allah ka qabto runtii waxaad moodaa wadanku inuu isa sii bedelayo marka dambaysa dadku markay xoogaa nicmo yar helaan way kibraan waa dabeecadda bani aadamka sidaas maalinkii wax yar gaaraan nacabaad iyo cabasha la bilaabaa sida ilaahay quraanka meelo badan uu ku sheegay dadkaasi hadaanan dadka wax garadka ah ee culimada ama mas'uuliyiinta ah aysan wax ka qabanin ciqaabti ka dhalatay dadka dhan bir way saameynaysaa sida ilaahay noo sheegay subhanahu wa ta'ala rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay haday qoom macsiyada iyo dambigu uu ka soo daahiro ku dhex faafo ilaahay cadaab uu ku caamimaya dhamaantood qofna laga tagi maayo kan masjidka ku jira iyo midka shaarica ku niikina isku si loo cadaabaya maxaa yeelay waxa loo baahan yahay inta wanaagsan inay u istaagto inay wax ka qabato inta xun oo gacmaha la qabto oo la yiraahdo cadaabka ilaahay hanoo sababina wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa marka dadkaasina aan u duceyno cid alle cidii awoodo mas'uuliyad u haysa ama wax ka qaban kartana waxa ku waajib ah inay wax ka qabato ugu horeeyaan waalidiinta dhalay iyo dadka ehelka iyo qaraabada la ah iyo meelaha ay joogaan dadka maamula ee mas'uuliyadda u haya jazakumullahu khairan intaas insha Allah ta'ala ku soo koobaya dhamaantiin waa mahadsantihiin barakallahu fiikum wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad